السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت نمت الله ونحريست انت حنوسن إلى عافية وحب مراد كود قرية لهاسي أمين. ولواتن استعدي بش لحاد لو كن لواتن لحدة تطودي بش كواد كنا فربغلا فرتن استيد ترام أيا ستوسة ودهي حل نبادي أنكوين إسرائيل لبنان ويدا ماتي إسرائيل أيا سو صارتي عداز كدب بوي ماضي مريكنك ayna ku yareynayaan in wixii Lubnaan meesha qadka cas ama qadka jacla wax ka badan oo loo xadeeyay wixii ka badan inay magaran ciidamada ku xadgudub karin kadib markii cadaadis ay magaranaysa Mareykanka uu saaray inuu hoggaansamaa heshiiska la galay Iran oo ahaa in Lubnaan la weerari karin in koonfurta ka baxaan fariin Trump oo Israa'iil xilligii howlgallada aan xadidayn لبنان ودمالي هجامية سياسات إسرائيل أي صوص صاري حراء عصب وحديدة دقدقاقة إذا مدى إسرائيل كفرت لبنان طلاب الله أركي إني كدلتي عدادسك كاقي إيمانايا مريكنك si Israa'iil koonfurta Lubnaan talaabo loo arko inay ka dhalatay cadaadis kaga imaanaya Mareykanka si Israa'iil ay ugu hoggaansanto heshiiska iyo safgaradka Israa'iil iyo Mareykanka heshiiska u dhexeeya Iran iyo Mareykanka warbaahinta Israa'iil ee January 13 ay sheegtay in xeerarka oggolaanshaha ciidamada inay ka howlgalaan gudaha ayaa loo yaqaanaa qadka jaalaha ah si ay uga hortagaan khatarta tooska balse ay mamnuucayaan howlgalla laga fuliyo meelaha fogfog oo ka baxsan sida Beirut oo Surah. Talaabadan ayaa muujinaysa in maamulka madaxweyne Mareykan Donald Trump uu kordhiyay cadaadiska uu saaray Israa'iil gaar ahaan arrimaha Lubnaan iyo meelaha kale oo gobolka ka mid ah. Mas'uul sare Israa'iil ayaa sheegay fariinta aan ka helnay Mareykanka toddobaadyadii la soo dhaafay waa mid cad waxaad hore u haysateen xorriyad aad ku shaqaysataan adigoon wax xanibaad ah haynin balse waqtigaas waa dhamaaday waqti hore haysan xorriyad hadda laakiin waqtigaas uu dhamaaday wax walba waxay yardanayeen wixii samee lagu dhawaanay samaysid haddii kale cid ku caawinaysa ma jirto. Hadalkani ayaa ka hor imaanaya hadalla hore oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay si buuxda ugu madax bannaan yihiin inay ka howlgalaan koonfurta Lubnaan si ay uga hortagaan khataraha ka imaanaya kala duwanaanshaha Mareykanka iyo Israa'iil. Wargeyska Israa'iil ee Maariif ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta Lubnaan. Mareykanka wuxuu koonfurta Lubnaan u arkaa qayb ka mid ah qorshe goboleed ballaaran oo ay ku jiraan marinka Hormuz, qiimaha tamarta, barnaamijka nukleerka intaas oo arkaa iyo guulaha diblomaasiyadeed oo uu doonaya maamulka Trump. Dhanka kale maamulka Trump ayaa waxay aaminsan yihiin inay ka bixitaan degdeg ah oo lagu sameeyo koonfurta Lubnaan loogu fasiran karo daciifnimo isla markaana faa'iido u noqon karta Xisbullah. Waxay leeyihiin haddaan ka baxno koonfurta Lubnaan waxaa noqonayna daciifnimo hadafkeenan maan gaarin Xisbullahna way guulaysatay. heshiiska Mareykanka iyo Israa'iil ayaa dhaqan galay 18 Juun markii si elektaroonig ah ay u saxiixeen Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Pezeshkian waxaana ku jiray qodobo dhigaya in la ixtiraamo midnimada iyo madaxbannaanida Lubnaan. Israa'iil waxay haysataa dhulal ka tirsan koonfurta Lubnaan qaarna waxay qabsatay intii u dhaxaysay dagaalkii 2023-2024
halkaas weerarada ugu dambeeyay ay gudaha u galeen in ka badan 10 kilomitir oo Lubnaan arrinta Gaza. dhanka kale Israa'iil waxay ka fiirsanaysaa tallaabooyinka military ee lagu doonayo in lagu hubka looga dhigo Hamas, sida uu sheegay General 13 taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir ayaa kulan la yeeshay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada si ay uga wada hadlaan qorshaha military oo ka dhan Hamas iyo kororka saameynta arrimaha Gaza. kulankaasi waxaa lagu soo jeediyey in la bilaabo howlgal military oo ballaaran oo lagu beegsanayo Hamas, iyadoo howlgalka ku xiran doono go'aanka siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah qiimeynta kulanka lagu soo bandhigay ayaa muujinaya cabsi laga qabo in madaxweyne Donald Trump uu diido howlgal ballaaran oo Gaza lagu fuliyo, isla markaana uu muujinayo dabacsanaan ku saabsan arrinta hubka ka dhigista Hamas. Inkastoo heshiiska xabad joojinta uu dhaqan galay 10 Oktoobar 2025, haddana Israa'iil ayaa lagu eedeynayaa inay sii wado duqeymo iyo rasaas maalinle ah, kuwaasoo ku saabsan dhimasho iyo dhaawac badan. dagaalka socda muddo 2 sano oo bilaabmaday 8 Oktoobar 2023 ayaa sababay in ka badan 73,000 oo dhimasho ah, 173,000 oo dhaawac ah, iyo 170 burbur baaxad leh gaaray ku dhowaad 90 kaabayaasha rayidka ee Gaza. marka walaalayaal, waxaa rabay qodobkan inaan soo wadaago oo degdeg soo gaaray. wixii kusoo kordha qodobkan wayna warkeena dambe. waan salaamayaa. maalintiin ay wanaagsanaato. hala share gareeyo, share, like. Salaam.